Hargeysa waxay martigelisay afur wadareedkii ugu ballaarnaa taariikhda caasimadda iyo munaasabad si weyn u muujisay midnimo, isxilqaan iyo wadajir bulsho. Afur wadareedkan ay soo qabanqaabisay shirkadda Dahabshiil waxa uu isku keenay bartamaha Hargeysa qaybaha kala duwan ee bulshada. Yoolka iyo ujeeddaduna waxay ahayd xoojinta isdhexgalka, iscafinta iyo ka fogaanshaha qabyaaladda, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Ugu horreyn waxaa furitaankii munaasabadda afur wadareedka ahayd ee Hargeysa ka hadlay Jaamac Nuur Wacays, madaxa howlgelinta shirkadda Dahabshiil, oo ka warbixiyey muhiimadda uu afurkani u leeyahay midaynta bulshada iyo dhisidda kalsoonida wadajirka. Waxa uu si gaara u adkeeyey in loo baahan yahay in laga dheeraado qabyaaladda lana xoojiyo walaaltinimada iyo wadajirka ummadda. Ramadaan Kariim waqti munaasib ah oo dadku sooman yahay ayaa Dahabshiil Group waxay go'aansatay inay dadka isu keento intii la gaari karo la wada afuro walaaltinimada iyo isu soo dhawaanshaha iyo wax isu ahaanshaha iyo shucuurteena islaamiga ah la muujiyo. Waan ognahay dalku iyo dadka Soomaaliyeed dhulkooda dhammaantood ay joogaan duruufo adag bay ku jiraan. Duruufaha abaaraha waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu ka soo qaboojiyo. Dahabshiil Groupna saad ka war haysaan marka already way ka qayb qaadatay sidii abaaraha looga geysan lahaa, ama waraab ha noqoto ama ha noqoto sidii dadka raashin loogu qaybin lahaa. Dadaalkana waan sii wadaynaa meel walba oo Soomaali degto geeska Afrika. Maanta waxaanu ka samaynaynaa magaalooyinka waaweyn iftaartan oo kale ah. Waxay ka socotaa Djibouti, waxay ka socotaa Jigjiga, waxay ka socotaa Muqdisho iyo meelo kale oo dhulka Soomaaliyeed ah ee geeska Afrika. Muhiimaduna waxa weeye inaynu dadka isu keenno walaaltinimadooda iyo xusuusaanshahooda muujino. Runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku boorinayaa inay dhammaan ganacsato, shacbi, dowladaha kala duwan inay ka qayb qaataan si dadka abaaruhu hayaan wax looga geysan lahaa, loo taageeri lahaa, ummadana loo walaalayn lahaa. Halkudhigayga sanadkani sida halka ka muuqata waxa weeye aan midayno qulubta oo ka fogeyno qabyaalad. Marka runtii aan dhammaanteen isku tiirsanno, wax wada qabsanno, iskaashanno, isku ducaysano, Ilaahayna abaarta ha naga soo jebiyo. Gabagabadii waxaa madasha soo afmeeray maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, oo si weyn ugu bogaadiyey shirkadda Dahabshiil doorka ay ka qaadatay abaabulka afurkan taariikhiga. Waxa uu ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo kor u qaadaysa midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada. waa maalin barakaysan, waa bil barakaysan, waa saacad aynu sugayno in la eedaamo oo aynu afurno si aynu Ilaahay u barino oo Ilaahay aynu u weydiisano dambi dhaaf. waxaan doonayaa walaalayaal marka ugu horeysa inaan u mahadnaqo kumbaniga Dahabshiil oo maanta inoo suuro geliyey inaynu afur walaalnimo, afur wadareed walaalnimo ah oo midnimo ah oo isa saamaxaad ah inuu halkan inoogu qabto. wax badan oo wanaagsan ayuu kumbaniga Dahabshiil hormuud ku ahaa. maantana inuu inoo bilaabo afur walaalnimo, midnimo, isa saamaxaad oo dadka walaalaha ah iyagoo kala wada walaalo reer Soomaaliland meel isku mid ah ay ku wada afurayaan maanta. inuu taa inoo suuro geliyo waa ka mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya afka magaalada iyo afka golaha deegaanka. waxaan rajaynayaa inay degmooyinka arrintan tusaale kale u noqoto oo maalmo kale oo dadka walaalaha ah ee reer Hargeysa ay sidan oo kale isugu imanayaan oo iyagoo walaalaha wada afurayaan ay inoo suuro gasho. Dahabshiilow sidaas baa tusaale wanaagsan ku tiin oo idinku mahadnaqaynaa. dadka reer Somaliland walaalayaal bishani waa bishii aynu Ilaahay ka baryaynay inuu ina saamaxo oo dunuubteena dhaafo. mar haddaynu Ilaahay weyne qaadirka baryayno oo inu saamaxaad ka dalbayno kana filayno inuu noo dambi dhaafo, bini aadamkuna waa inay is saamaxaan. inta laba bini aadam ay isu suran yihiin adigoo dadka suran, ama adiga ay qaar ku suran yihiin oo saamixin, ama adigu ama kuwii kale aanay ku saamixin, Ilaahay waxaad weydiisanaysaa gamcaha kor ugu taagaysa waxa ka horeysa horta inaad bini aadamka adigu musaamax ka dalbato is saamaxdaan. dadka waxaan ka codsanayaa in la is saamaxo
walaala la noqdo markaynu inagu isa saamaxnana ilaahay aynu saamaxaad iyo dembi dhaaf aynu ka barino ilaahay afurkan ha inoo barakeeyo ha isu keen jeclaysiiyo ilaahayna waxaan ka baryayaa marka aynu wada afurno aynu ducayno inaynu dalkana u ducayno dadkana u ducayno abaarta in ilaahay ka soo furto wataa la eedaamay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in dadka jilicsan in ilaahay abaarta ka soo furto oo ina soo furto oo roob iyo nimco inagu maasheeyo daabshiilla waa u ducaynaynaa allaha barakeeyo maalka allaha u sii siyaadiyo kumbani magaciisu meel walba ka dhaca adduunka allaha ka yeelo afurkan waxa uu noqday mid taariikhi ah oo lagu xasuusan doono isku soo dhoweynta iyo midnimada bulshada Hargeysa.